waxaa laga keenay Mombasa ayaa dharkeygii loo qaaday si sixir loogu soo sameeyo oo noola kala furo aniga ninkeygii. waxaa ku cataawday gabadhan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. mar kale ku soo dhawaada muuqaal cusub. magacaygu waa Cabdirasaaq Xaashi. halkaan nagala socotaana waa degdeg channel. bal aan iska degdegay horta hore waxaan iga codsanayaa awalan fushta marka koowaad meel walba adduunka ku nooshihiin horta hore waa salaanaya soo dhawaada waa mahadsantihiin waan jeclahay Soomaaliyay inta calanka buluuga qadaridooy waxaan leeyahay meel dheer iga taalan horta leeg saara muuqaalkan si shaqreeya YouTube channelkan waa cusub yahay 416 subscribe maraa maanta bisha waa 12 marka waxaan iga codsanayaa inaad dhamaadka bishaan aan la xirtaan kunka asxaan waayo codsi iyo wali walaalnimo Soomaalinimo please si shaqreeya muuqaalkayga. Okay, waxaan ka hadlaynaa gabar ay kala tageen Abtiliibaan oo magaalada Nairobi degan oo ka hadashay si xun waliba arrin aad iyo aad xun badan oo lagu sameeyay. bal horta hore ila daawa muuqaalkan. waxaan dhahay in horta farxad maalintaas baa igu dambeysay maalinta Liibaan aan kala tagnay ana gurigaas baan ku jira sariirtaas iska saarna wallahi kama soo kacay sariirtaas afraatan ka iska saaran dad lama sheekaysti farxad oo dhan maalintaas ay igu dambeysay farxad oo dhan way iga guurtay alxamdulillah rabbil caalamiin ana hadda quraana la isaaray waa saxaas qof dartooda aniga waliba Maxamed Barstamo link la leeyahay intaan wacday oo ma dacwoonin ma dhihin aniga Liibaan isfahmi la aniga Liibaan dhibaatana dhex taaganta maxamed soo xalay wallahi inaan dhihin fitno iyo sixir iyo balaayo asaga la wareega oo soo maleeyay oo gurigaas ma qudumay waxaan leeyahay mararka qaarkood dad aad u moodo ehel saaxiib walaal ayaa waxay ku noqdaan dadka kuugu cadowsan oo noloshaada qariba oo baabi'iya mustaqbalkaaga. yes qof aad ka filaynin inuu maalin kula goynayo ayaa labada lugood ku jaraya. haddaba waa ujeedaan gabadhan wiil ayay isbarteen waa la isbaray waliba dadkii isbaray oo ka mid yahay Sakariye iyo ninka la yiraahdo Barastamol xaaska Barastamol adiga leen dheer xariir dheer ayuu Abtiliibaan soo maray ragga maadaama iyo Abtiliibaan wax isla jilaayeen asxaabna ay ahaayeen waxaa lagu qalqaaliyay inuu guursado gabadhan oo tago Nairobi oo la aqal galo kadibna xaasi u noqoto laakiin maxaa lagu sameeyay Abtiliibaan bal daawo muuqaalkan. gabadhii aan aad ku jeclaayo marwadeeda ahayd oo gurigeyga maanta saas u ka dhigay dhima laha gabdhaha Soomaaliyeed ilaahay badiyay marba aday taagan tahay xaaskeyga xalaasha ahayd ciidan Maxamed Barstamo heemba mas'uul iga ma taas way ka soo tagtay gabadhii Maxamed Barstamo bay waxay ku tiri ninkan ha i dhigo akhara waa isu saajina codkana waa yaala waxay tiraahday ha i dhigo asagana wuxuu dhahay gabadha anagoo ilma adaradeeda baa gabdhaha garabka taagan dhig gabadhan aniga waan kala tagnay garbaheeda adaa taagan tahay ha lagu arkaa boo ha lagu arko. waa arkeedan Abtiliibaan khiyaanadii lagu sameeyay ee uu ku sameeyay Barastamol Maxamed Barastamol kulli waxaan leeyahay arrintaas shalay markuu Liibaan sheegayay wallahi dad badan ma aaminaynin laakiin maanta markay ka soo hadashay isla gabadhii oo ay leedahay waxa isxiray dadkaas oo dharkeyga Mombasa loo qaaday oo reerkeyga lagu duminayay waa maxay cadownimada intaas la eg oo la isku qabo waa arkay oo markhaatigeeda leeyahay waa wax aan ogahay oo dad badan lagu sameeyay. xaasinimada ma fiicna qof walaalka ah oo adiga aan irsaaqad ka rabin oo adiga aad biilaynin oo adiga aan waxba ka rabin oo guri jar kaaga jirin oo meelna ku deganin aad dhibaateynaysa maalin habeen. Abtiliibaan muxuu ka sameeyay Maxamed Barstamo iyo Sakariye Allah ilaahay waa og laakiin waxa ogahay inay dulmiyeen
oo mataqaan ninka odaga maskiinka iska faraxsan iska sheekeeya tiktoka weliba tiktok ma badnay snapchatka Taliban oo famous ka yahay kuna soo caan baxay isagoo lug dheer oo sarra wata yaa kadibna isagoo filmo la jilay aragnay maxaan barastimo laftirkiisa laakiin waxa hadda u jeednaa dhibaatadii lagu sameeyay inay tahay dhibaato xun shalay markuu Taliban ooynayay ama qaylinayay qof kasta waxa uu haystay yacni dad badan ku qaldamay Liibaan oo caynaya aniga markaas muuqaalkaas kama ana soo hadlin waxaan uga soo hadli waay wax kala maahan waxaas dhahay markaan balniyo arrintan wacdi laakiin maanta waa ka aamusi waay waxaan arkay in Taliban la xaasinimeynayay mustaqbalkiisa la baabi'inayay gurigiisa lagu ciyaarayay qarash la geliyay Nairobi la geeyay gabadhaana waxay leedahay waa la sixray oo waxaan aheedo baay waxaan ku leeyahay aniga ku sheega runta waxa ay tahay madaxa ciid ka cashanaysa laakiin waxa kaaga fiican qofka bini'aadamka uu qaldamaa inaad intaad Liibaan la hadasho aad tiraahdo walaalow waa qaldamay waa laga qalbadiyay waa xawaaye wixii lagu simato Ilaahay baa ogmutay laakiin inaad si degan aad u sheegto Taliban u wacdo yani wax walba runta aan uga sheegto sidii mustaqbalkaaga lagaaga dheelina hadda kadib aad ku fiirsan lahayd haddii aad markaa Liibaan jaanis ka helidina aad soo ceshataan waan ku tali lahaa haddiiba jaanis la helayo mar kale laakiin haddii jaanis uu jirin gabaray waxaan tusaale waa qaadatay waxaa tusaale ku qaadatay in dad gurigaaga ay kaa dumiyeen lagaa aqalbadiyey lagu sheeko xumeeyey lagu yiri ninkan waxa waaye Mareykan buu ka yimid ninkan saan buu ahay kan buu ahay kista ka daadso markii horeba lagu geliyay ee daacad Ilaahay u gelin waayo haddii marba aad ku dhisanaydo oo mustaqbal samaysanayso ma ahan dadka qaarkood inaad dhageysto sideedana dad haddii aad markooda soo qaadato qofkaaga iyo adiga waa isku nacaysiin Taliban waxaa caddaatay maantay in ay ka gardarnaayeen oo ay qiyaameeyeen oo ay sixireen oo ay dhibaateeyeen Maxamed Barastimool iyo Sakriye xaaskiisa waayo waxaad arkaysaa hadallada loo leeyahay Maxamed Barastimool marar badan ayaan daawaday muuqaalkiisa oo laga hadlay arrintaas laakiin waxa ii suurtageli weyday maanta ka hor inaan ka hadlo waayo wax walba waqti way leeyihiin oo qofka Ilaahay u qaado inuu ka hadlo waxaan arkay Taliban maanta in laga daran yahay la dulmiyay reerkiisiina qarash la geliyay laga burburiyay la dhibaateeyay aad ayaan wax xumahay waxaan ku leeyahay Liibaan walaal samir qofka sabraasadkiisa hela waayo marka iska sabarto ma fiicno qof in loo samro ma fiicna hadduu ku dhaho hebel waa kuu samraa dhibaatadii Ilaahay ugu daaya waa sheekada marka ragaas ku dhibaateeyay ee ku khasaariyay Ilaahay xaqiisa u dhaay maalin waxa jirta ee ka xanuun badan tahay yani arrintan oo mataqaana aan cidna waxba ka qaban karin dhibaato badan tahay taasna way jirtaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh muuqaalkan si shirgareeya